masaajidka Edmonton ee waqooyiga magaalada London waxaa salaad janaasa lagu tukaday Cabdulqaadir Cusmaan Bootaan iyadoo salaadii janaasada kadib lagu aasay duleedka magaalada London. waxaa aaskiisa ka soo qayb galay inta badan bahaweynta isboortiga Soomaalida UK iyo qaar kale oo ka kala yimid guud ahaan caalamka. Isoomaray wuxuu ahaa nin qaran annaguna waxaan u sameynay aas qaran sida aad arkaysaan Allah u naxariistaanu leenahay ehel iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna samir iyo iimaan. waxaan halkan taas u direynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed eheladii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay marxuum Cabdulqaadir Isoomaray in ducaayna leeyahay walaan ku ducaayana inay jannada Ilaahay ku waraabi Cabdulqaadir Xuseen Bootaan in Ilaahay kutubki garabshiga midig Ilaahay inay ku siiyo anigoo ku hadlaya magaca jaarida magaalada Manchester dhammaan wakiilka ah dadkii magaalada jiray inay wada yimaadeen jeclay laakiin danta ay u saamixi weysay waxaan taasi u gudbinayaa ahalkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo isboortigii in qof kasta oo taqaanay adeer Cabdulqaadir Ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo jannada Ilaahay ka waraayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. halka waxaan ku tacsiyeenaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed qaasatan bahaweynta isboortiga waxaa naga geeriyooday adeerkeen Cabdulqaadir Isoomaray Ilaahay naxariistii janna Allah siiyo. maanta halka waxaan joognaa qabrigii asxaabta lagu duugay dhalinyarada saaxiibadeena Isoomaray Cabdulqaadir Xuseen Bootaan Isoomaray loo yaqaan ciyaaraha qaabishana ana macallinkii qarankan horseed watay saasaan ugu tacsiyeenayaa maanta samir iimaan Allah naga siiyo. runtii tacsiya u diraa ehelkii qaraabadii oo ka geeriyooday especially maalintii oo isbitaalka galay haarataanka ku soo booday koomada oo galay iyo ilaa uu ka dhinto ninkii garabka u noqday waa Maxamed Khaliif. aniga ku hadlayo magaca guddiga Olombikada iyo guddiga Olombikada dhamaantiisa xiriirada waxaan tacsi u direynaa dhammaan ehelkii qaraabada oo ka geeriyooday iyo maxaa la yiraahdaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba. Isoomaray annaga wuxuu noo ahaa odayu noo ahaa sportska asaga qayb walba hogaamiyaheena ama wadageena ahaa. Ilaahay waxaan uga baryaynaa qabrigiis waasac inuu Ilaahay uga dhigo jannatul firdawsna Ilaahay oo galiyo insha Allah taala. kullu nafsun daa'iqatul maut meesha la wada socdo waa meesha hadda aan adeer Cabdulqaadir dhignay. hadda waxaan naga baxay aabihii isboortiga naga baxay waxaan leenahay Ilaahay الله كدغو جنة الفردوس الله ugu bishaareeyo. Cabdulqaadir Isoomaray maanta maalintii u dambeysay maalintiisa maanta ahayd qabrigaan joognaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Ilaahay u naxariisto. runtii waxaa naga baxay shakhsi bulshada isboortiga Soomaaliyeed gaar ahaan bahda UK qiimo badan ku leh shakhsi maartay jecla midnimada iyo walaaltinimada iyo maartay isku duubnida bahdan. Cabdulqaadir horta Ilaahay qabrigiisa waasac Allah uga dhigo. Cabdulqaadir anigu waxaan aqaanaa waxaan isbaranay 55 maanta meeshaan waxa isugu imaanay waa walaalkeen adeerkeen aabaheen Ilaahay jannada ha ka waraabi wax kale oo macna aan dhigi karno malaha kulay sabir iimaan Allah naga wasiyo waa naga wada dhintay dugti waa arkaysa si looga soo qayb galay intaana waxayna tusaysaa inuu ahaa nin aad u fiican nin mar walba dadaal jiri. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Cabdulqaadir waxaan ku hadlay magaca ehelada Cabdulqaadir Xuseen Bootaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo nagala qayb qaatay aaska iyo xataa markuu isbitaal ku jiray gaar ahaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa bahda sports.